dadka barakacayaasha ku dhaqan xaafadda 15 May ee magaalada Burco ayaa maanta cabasho baan ka muujiyay xaaladooda nololeed waxa ay sidoo kale sheegeen in xaaladooda nololeed ay ku sugan yihiin ay tahay mid aad u liidata isla markaasina aanay haysan hooy cunno biyo caafimaad iyo waliba baahiyaad kale u baahan yahay qof kasta bini'aadam ah waxaana sidoo kale carabka ku dhuftay inay haba yaraatay wax ka qaban xukuumadda haatan dalada dalka ay Sawirmuuti ka yahay Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo hay'adaha dawliga kuwa maxalliga ah ee ka shaqeeya arrimaha samafalka ee bini'aadantinimada daboolida baahiyaadkan ay u baahan dadka barakacayaasha ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaana dadkan barakacayaasha halkaas ay ka sheegeen in u baahan yihiin in wax laga qabto dhanka caafimaadka waxbarashada biyaha cunnada iyo waliba hooyga waxaana sidoo kale baaq u diray dawladda Soomaaliya inay si degdeg ah uga soo gaaraan xaaladdan ay ku sugan yihiin waana kuwan iyaga arrimahaas ka hadlaya Ali Abdi oo bagayga la yiraahdo oo ku sugan kaamka 15 May waxaan leeyahay dadkan aad iyo aad bay dhibaataysan yihiin una ma haystaan hay'ad wax siisan male waxa la leeyahay waa la raraya waxaan u malaynayaa inay tahay qowdu magashi waxba u qaban dadkan inay aad wax u qabtaan hay'adaha UNHCR iyo waxa la sheegaya inay wax u qabtaan ay halkaan ma garanaysaa suuli iyo waxa ay u dhisaan ay dhinaca caafimaadka iyo waxbarashada ay wanaajiyaan waxaan u malaynayaa waa la idararaya kuwa halka jooga ay wax una laayihiin annagii haddii meeshiina la geeyo waxaan u malaynayaa inay meesha ay ka socoto dab iyo hola dadkan inta joogana halka la geeyo oo la laayo waxaan u malaynayaa inay tahay inay inta iska joogaan ay nabad iyo barwaaga iyo nolol fiican ay ku haystaan dowladda Soomaaliland aad iyo aad baan u salaamayaa dadka 22 sano halkan joogay waxay ku haysteen nabad iyo nolol iyo barwaago waxaan u malaynayaa inay tahay waxa ikraankoodii iyo karaamadoodii ay kula timaadeen inay yihiin waxaan leeyahay dadkan walaalihiin aad iyo aad bay ayaad u soo dhaweydeen ayaguna sida oo kale waan idin mahadcelinayaan oo idin salaamayaan weligiin ha jira ha jooga nawo magay Ibrahim Soomo Ibrahim gudoomiye malaha heer koonfurka barakacayaasha 15 May deganay aad iyo aad baa u dhibaataysanay malaha baaha aad baa noo hayta hooyina ma hayna ilaahay ku roonyo malaha suuliin ma haysana malaha gaaje aad iyo aad baa noo hayta meelka hooyin malaha ma haysano dadku walaanyogaan ee dalkii dibadda joogan malaha ilaahay baa gargaar ku doonayna inay noo gargaaran ba doonayna kulli aad iyo aad baa u dhibaataysanaa malaha waa gaajaysanay nadaafad ma haysano malaha hooyin ma haysano meel buulul ka dhax jarna malaha roobkii malaha sanadkan daay aad iyo aad baa malaha buululkii malaha nugu dumeen ni dadku walaanyogaan ee dalkii dibadda joogan malaha noo gargaarano malaha ugu mahadcelino saas baa doonayna salaamo magay ah Abdullaahi Maxamed ah oo ka tirsanahay barakacayaasha 15 May waxaan codsanaynaa hay'adaha samafalka iyo dawladda Soomaaliland waxaan codsanaynaa ilaah balaw codsanayay inaan barakacayaasha halka ay degan si aad iyo aad yaan u dhibaataysan yihiin xagga waxbarashada xagga nolosha xagga caafimaadka xagga cuntada dhan walba aad iyo aad baa ugu liidaan Faadama Xasan Maalin wali dhahan magac maskiinkii maar hula u qaban heer bakool ahay walba u baahan baahay hayso dhibaato ay hayso dhibaataysannahay way maglaysan ku waran agoon baahay rajaahay dalkay tiraday ma joogaan raashin u baahanahay wax walba u baahanahay waxanuusanaya way jirinaynaya agoon ahay rajaa hooyo abamiinol walaalayaal waxay rabaan waxa walba u baahanahay inay isiisiin asi kastaba xukuumadda talada dalka ay Sawirmuuti ka yahay Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo hay'adaha dawliga iyo kuwa maxalliga ah ayaa noqonaya mid iyagu dhagaa ka furaystay baaqyada istaba joog ee ka soo baxay dadka barakacayaasha ku dhaqan gudaha magaalada Burco Abdi Xasan Xuseen Abdi Xarad shabakada caalamiga Dad Modern News magaalada Burco